imaamkii la oran jiray addahabi kitaabkiisii alkabaa'ir ayuu ku qoray qiso cajiiba oo dhacday. haweenay haysata 2 gabdhood oo agoon ah oo aabbahood uu dhintay ayaa magaalo waxay ka deganayeen guri. kiradii guriga ayay iska bixin waayeen. dhowr mar ayaa digniin la siiyey, waqtigii way ka daaheen. ninkii guriga lahaa uu ka soo saaray haweenaydii iyo 2deedii gabdhood. xilli qabow daran uu jiro ayay magaaladii ka soo tageen oo ay yimaadeen magaalo kale. waxay degeen guri jajaban oo hore looga guuray. dibadda ayay u soo baxday. ninkii ugu horreeyay la kulanto wuxuu ahaa nin odaya oo muslima. waxay u sheegtay in ay dhibaato hayso, ayna doonayso 2deeda gabdhood iyada inuu siiyo waxay cunaan. laakiin wuxuu ku yidhi, maxaa ii xaqiijinaya in warka aad sheegaysaa uu run yahay? way iska soo socotay iyadoo murugaysan. nin kale oo odaya ayay markaa la hadashay. ninka wuxuu ahaa nin diinta masiixiga aaminsan ama kristan ah. isaga iyo xaasas uu lahaa ayaa aad u soo dhoweeyey gabadhii muslimadda ahayd iyo 2deedii gabdhood. ninkii muslimka ahaa ee gabadha isagu sida wanaagsan aan ula dhaqmin ayaa riyooday. wuxuu arkay guri qurux badan oo dhayman iyo luul iyo wax kasta oo qurxoon lagu sameeyey. riyadii ayuu ku arkay nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam. wuxuu weydiiyey nebigii ilaahayow, gurigan yaa iska leh? markaasuu nebigu ku yidhi, nin muslina oo muwaxada oo markaa wanaagsan. markaasuu yidhi, aniga waxaan ahay nin muslina oo muwaxada oo wanaagsan. laakiin wuxuu ku yidhi nebiga, yaa caddaynaya inaad run sheegayso? markaas ayuu ninkii wuxuu ku yidhi, anaa caddaynaya. markaasuu nebigu ku yidhi, maxaad u tiri gabadhii muslimadda ahayd hadalka? hurdadii buu ka soo toosay isagoo naxsan. wuxuu soo qaatay lacag 1,000 diinaara. wuxuu u yimid ninkii nasraaniga ahaa. markaasuu wuxuu ku yidhi, walaalow, waxaan doonayaa gabadh iyo 2deedii gabdhood oo muslina inaad igu soo wareejiso. ninkii baa yidhi, aniga gabadhan iyo 2deedii gabdhood faa'iido weyn baan ka helay. xalay waxaan ku riyooday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ileh wanaagga aad samaysay darteed guriga quruxda badan baa jannada lagaaga dhisay. sidaa daraaddeed gabadhan iyo 2deedii gabdhood wanaag bay noo horseedeen aniga iyo ehelkayga. waxa ayna bideen inaannu markaasi qaadanno diinta islaamka oo ah midda saxda ah. ninkii muslimka ahaa oo ay markii hore gabadhii iyo gabdhaheedii ku soo hormareen aad buu u murugooday. wuxuu ka shallaayay faa'iidadii uu waayey ee uu helay ninkii kale, sidaana uu ku guulaystay. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.